Kani waa S22 Ultra waana telefoon cusub waana mid ka mid ah telefoonada ugu fiican dunida haatan. Let's go. soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan maanta waxaynu kaga bixin doonaa review telefoonka cusub ay soo saartay shirkadda Samsung ee S22 Ultra ahna mid ka mid ah telefoonada ugu fiican dunida sanadkan 2022. ugu horeyntiisa ma tahay muuqaal sameeye? Yes. ma tahay sawir qaade? Dabcan. ka waran gamer? ka waran muuqaal duube? Absolutely. haddaba S22 Ultra waa telefoonkaaga. waxaa dhici karta inaad weydiiso sidoo ku noqon kara S22 Ultra telefoonkaygii. aniga ayaa kuu sheegaya sababta uu ku noqday. diyaar ma tahay? waan filayaa dabcan. ugu horeyntii S22 Ultra waxa uu soo baxay 9 February. This is an unpack like no other. waxaana la socday laba telefoon oo ay ku wada jireen liiska S22 iyo S22 Plus. sababaha ka dhigay telefoonkan mid ka mid ah telefoonada ugu fiican ayaa qaabka uu samaysan yahay oo ah leeying iyo geesihiisa xoodan iyo waliba inuu telefoonkan ku shaqeynayo S Pen iyo shaxda ay u taala kamaradihiisu iyo waliba cabirka baytarigiisa weyn ayaa ka duuday dhammaan telefoonada dhigiisa. sidaynu naqaano shirkadda Samsung waxa ay soo saartaa telefoonno fara badan balse waxa ugu caansan labada series ama taxane ee moobilada ku abtirsada S serieska ama Note serieska. waa cajiiba telefoonkan S22 Ultra waa telefoon koobsaday labada taxanaba. ugu horeyntii waa S series, mar labaadkana telefoonkan waxaynu oran karnaa waa Note sababtoo ah waa telefoonkii ugu horeeyay ee taxanaha S ku abtirsada ee leh S Pen ama leh daroolkii la gelinayay qalinka. waxaynu oran karnaa S22 Ultra waa Note 22 Ultra oo wata magaca S22 Ultra. aynu nimaadno dhanka iskriinka telefoonkan. iskriinka telefoonkani waa xoodan tahay, cabirkeeguna waa 6.8 inch. runtiina waa telefoon shaashadiisu ay aad u weyn tahay. shaashada telefoonkani ma aha shaashad caadi ah sababtoo ah shaashada telefoonkani waa mid ka mid ah shaashadaha ugu iftiinada badan telefoonada oo waxa ay gaadhaa cabirka iftiinka telefoonkan shaashadiisu 1750 nit. taas micnaheeduna telefoonkan waxaad ku isticmaali kartaa cadceeda adiga oo arkaya shaashada telefoonkaaga si fiican. sidoo kale shaashada telefoonkan ayaa ah mid midabadeedu qurux badan yihiin, resolution-keeguna uu fiican yahay. sidoo kale waa dynamic AMOLED display. refresh rate-ka telefoonkan ayaa ah mid cajiiba oo waxa uu gaadhi karaa markaad ciyaarayso geemiska refresh rate gaadhaya 120 Hz kaas oo kuu fududeynaya inaad si fudud u ciyaarto geemamka. sidoo kale refresh rate-ka telefoonkan ayaa gaadhi kara 1 Hz marka aanad u baahnayn refresh rate badan si uu kugu kaydiyo dabka ama baytariga telefoonkan. sidaynu naqaanana Samsung waa shirkadaha ugu fiican dhanka displayga amaba shaashad samaynta. inta haddaynu kaga nimaadno iskriinka aynu u gudubno S Pen-ka telefoonkan. S Pen sidaad ka dareemayso ereyga waa qalin. qalinkaasi waa qalin ku shaqeynaya telefoonkaaga. sidaynu naqaanana telefoonada S-ka may lahayn wax qalin ah. S Pen-kan waxa uu ka dhaqso badan yahay 3 jeer qalimaantii hore ama S Pen-iskii hore wuxuuna gaadhayaa latency-giisa amaba daahitaankiisu 2.8 millisecond. wuxuuna leeyahay feature ah AI Touch kaas oo saadaalin kara jihada qoraalkaaga, kaas oo kuu sixi kara kuuna toosin kara waxa aad qorayso. run ahaantii S Pen-ku waa feature aad u muhiima markaad isticmaalayso telefoon sababtoo ah haddaad tahay arday waa uu ku anfacaya oo waxa uu ku anfacaya inaad si fudud u noodgaraysato qoraaladaada. sidoo kale haddaad tahay ganacsade amaba qof inta badan sameeya saxiixyo waa uu ka anfacaya oo waxa uu ku ogolaanaya inaad si fudud telefoonkaaga ugu samayso digital signature waxa loo yaqaano amaba saxiixa tiknoolajiyadeed. sidoo kale waxa uu ka anfacaya dhanka productivity-ga oo waxa uu kuu fududeynaya hawlo fara badan. tusaale ahaan markaad edit garaynayso muuqaalada amaba aad samaynayso artiska amaba sawiraanta.
haddaynu inta kaga nimaadno S-Pen-ka taleefankan aynu u nimaadno dhankaas iyo kaamarada. taleefankan S22 Ultra waxa uu leeyahay 4 kaamaradood oo halka dambe ah. kaamarada koowaad oo ah ultra wide-ka waa 12 megapixel waxayna ku qaadaysaa sawiraan ballaaran oo qurux badan. kaamarada labaad ee main kaamarada waa 108 megapixel waxayna ku qaadaysaa sawiraan resolution-koodu sareeyo oo qurux badan. taleefankan waa cajiib waxa uu leeyahay 2 kaamaradood oo telephoto ah. mid waxa ay soo dhaweynaysaa sawiraanta 3 jeer midna waxa ay soo dhaweynaysaa sawiraanta 10 jeer. labada kaamaradood ee telephotuhuba waa 10 megapixel. taa micnaheeduna waa mid ka mid ah taleefanada ugu fiican dhanka zoomta kaamaradaha. aynu nimaadno kaamarada hore ee taleefankan ee selfie-da waa 40 megapixel waxayna ku qaadaysaa sawiraan cajiiba. haddaad tahay muuqaal sameeye ama sawir qaade taleefankani waa taleefankaagii sidaynu soo xusnay sababtoo ah taleefankan waxa uu leeyahay features kaamaradeed oo cajiiba. feature koowaad ayaa ah in taleefankan uu ku duubayo muuqaal cabirkiisu gaarayo 8K 20 fps. taleefankan waxa uu leeyahay auto fps kaas oo si automatic ah kuugu dooraya frame rate-ka ku habboon muuqaalkaaga. sidoo kale waxa uu leeyahay feature kale oo ah auto size frame micnaheeduna taleefankani waxa uu si automatic ah kuugu sixi karaa cabirka sawirkaaga ama muuqaalkaaga. sidoo kale kaamarada taleefankan ayaa leh stabilization micnaheeduna uu yahay gariirka saarid. feature kale ee kaamarada cajiibka ah ayaa ah expert RAW micnaheeduna yahay taleefankan waxa uu ku duubayaa muuqaalo bilaa midab ah. taa micnaheeduna si fudud ayaad haatan muuqaaladaada ugu rinjiyeyn kartaa barnaamijka aad ku edit garaynayso amaba waxa uu ku ogolaanayaa inaad color grading ku samayso muuqaaladaada. Samsungna waxay u samaysay application u khaas ah duubidda muuqaalada RAW-ga ah ama bilaa midabka ah. sidoo kale taleefankan waxa uu leeyahay feature kale oo ah AI autofocus micnaheeduna uu yahay taleefankani si automatic ah ayaa uu focuska u sixi karaa. oo kale taleefankan waxa uu leeyahay features fara badan waxa kamid ah night photography oo ah sawir qaadida habeenkii oo ah feature aad u muhiim ah isaga oo cadeynaya meelaha madoobeynayna ama naaqusayna meelaha cad. sidoo kale taleefankan waxa uu isticmaalayaa teknoolajiyada loo yaqaano multi frame processing taas oo ah in taleefankani marka aad ku qaado sawir waxa uu qaadayaa dhowr sawir kadibna waxa uu geenayaa dhowrkaas sawir isagoo isticmaalaya awoodda AI ama artificial intelligence isagoo ka soo saaraya hal sawir oo iftiin fara badan leh quruxna badan. taasina waxay ka dhigtay taleefankan mid ka mid ah taleefanada ugu fiican dhanka kaamarada. aynu u nimaadno dhanka performance-ga ama awoodda taleefankan. run ahaantii taleefankan waxaynu oran karnaa waa cajiib sababtoo ah taleefankan waxa uu ku yimaadaa chipsetka Snapdragon 8 Gen 1 meelaha qaarna waxa uu ku yimaadaa Exynos 2200 kaas oo ah chipsetka PlayStation 5. taa micnaheeduna waxa weeyaan taleefankan dhanka gaming-ka waa ku cajiib. sidoo kalena chipsetka waxa uu raaca RAM cabirkiisu gaaraya 12 GB iyo battery gaaraya 5000 mAh oo ku shaqaynaya fast charger 45 watt balse bogoska taleefankan kuma jiro charger. runtiina batteryga taleefankani aad ayaa uu awood weyn yahay wuxuuna ku hayn karaa muddo fara badan. inta haddaynu kaga nimaadno awoodda taleefankan iyo batterygiisa aynu u nimaadno dhanka software-ka taleefankan iyo UI-giisa ama user interface-kiisa hore. taleefankan waxa uu ku yimaadaa UI-ga cusub amaba Soomaali ahaan qaab shaashadeedka One UI 4.1 kaas oo ah user interface-ka cusub ee shirkadda Samsung kaas oo ah mid aad u qurux badan. sidoo kale taleefankan waxa uu raaca Android 12 kaas oo ah OS aad u qurux badan lehna features aad u fara badan oo cajiib ah. sidoo kale leh customization ama wax ka bedelid aad u fara badan waxaana taleefankaaga ka dhigi kartaa qaabka aad doonto iyo midabka aad doonto shaashadiisa adiga oo bedeli kara midabada iconada sawiraanta iyo color palette-ka taleefanka iyo widgetska. sidoo kale waxaad bedeli kartaa iconiska waxaana ka dhigi kartaa taleefankan qaabka aad doonto. aynu ku soconay taleefankan S22 Ultra shirkadda soo saartay ee Samsung waxa ay ku damaanad qaadaysaa in taleefankan uu heli doono Android updates amaba
updates dhanka operating systemka ah oo 4 ah. taa micnaheeduna waxa weeye halka dadka kale isticmaalayaan Android 12 oo ah OS-ka u dambeeyay ee shirkadda Google, adigu waxaad isticmaali doontaa Android 16. sidoo kale waxa inta raaca security patch waxa loo yaqaano, waxaana xaqiiqo ah in taleefanada Android ama isticmaalo operating systemka Android ay ku liitaan dhanka software updateska. aynu nimaadno waxyaabaha kale oo taleefankani ku fiican yahay. ugu horeyntii taleefankan waxa uu ku yimaadaa 2 RAM, mid ah 8GB iyo mid ah 12GB RAM. sidoo kale taleefankan waxa uu ku yimaadaa 4 midab oo kala duwan. sidoo kalena taleefankan shaashada hore iyo ta dambaba waxay ka samaysan yihiin Gorilla Glass, taas oo ah nooc quraaradeed oo u adkeysan karta waxyaabo fara badan, tusaale ahaan biyaha, dhaska iyo dhicitaanka intaba. sidoo kale taleefankan S22 Ultra waxa ku yimaada 4 storage oo kala duwan, waxaana dalban kartaa midka aad doonto. tusaale ahaan waxa ku yimaada 128GB, 256GB, 512GB iyo 1TB amaba 1000GB. sababta loo ballaariyay maskaxda taleefankan ayaa ah in taleefankan uu duubi karo 8K. muuqaalada 8K-na waxay u baahan yihiin storage fara badan si loo duubo. sidoo kale taleefankan waa 5G. sidoo kalena cabirka taleefankan ayaa ah 228 gram. runtiina waa mid ka mid ah taleefanada ugu culus. qiimaha taleefankan ayaa waxaan oran karnaa waa 1199 amaba 1199. aad baan u yahay taleefankani qaali. taleefankan S22 Ultra waxa la socday 2 taleefan oo ay ku wada jireen liiska sidaynu soo xusnay, S22 iyo S22 Plus. waxayna kaga duwan yihiin taleefankan waa ay ka jaban yihiin dhanka qiimaha, sidoo kalena way fiican yihiin oo ma xuma iyaguba. spectiskooga amaba nambaradooda waxaad ka akhrisan kartaa shaashada haatan, waana taleefano aad u fiican. kolley taleefankan waa sida aynu soo xusnay, waa taleefan fiican, awoodiisa ama performance-giisu ay fiican tahay, dhanka screen-kiisa sidoo kale ay aad u wanaagsan tahay. run ahaantiisa wanaag kastaaba waxa uu leeyahay xumaan. 2 shay ayuu ku xun yahay taleefankan. midka koowaad ayaa ah inuu aad u yahay qaali taleefankan. talabaad oo ku xun yahay taleefankan ayaa ah in shirkadda Samsung ay ka saartay chargerkii bogoska taleefanka, oo haddeer markaad iibsato taleefanka wax charger ah lama socdo. sababta ay sidaa u sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen in ay ilaalinayaan deegaanka, tahayna wax yareynaysa wasakheynta deegaanka. run ahaantiina samaynta ama ka saaridda chargerka bogoska ayaa wasakheynaysa deegaanka, sababtoo ah marka laga reebo chargerka taleefanka qofku waxa uu iibsanayaa charger kale. taasina waxay ugu horeyntii wasakheynaysaa lacag fara badan ama luminaysa. mar labaadkana waxay keenaysaa qashin fara badan oo qofku waxa uu ku iibsanayaa bogos kale halka uu markii hore hal bogos ahaan lahayd. sidaa darteed taleefankan labadaa shay ayuusan ku fiicnayn amaba ku wanaagsanayn, balse dhanka kale waa taleefan iyo bar. waa intaas. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, subscribe na dheh kanalka. waa Khalid Cabdiraxmaan oo idin leh assalaamu calaykum. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead.